السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساتين صاحبتي في عنتين warka keena maalmahan maxaa haysiin comment isoo qoro si aan ku ogaado xaalkiina iyo waxa ay haysiin. Waxaan rabaa maxaa la dhahaa inaan iibsado mar kastaba kama daalo. Hadaa hore ugu joogtay aad iyo aad u mahadsan tahay. Hadaa meesha ku cusub tahayne weli dadka i fiirsadaan boqolkiiba 80 iyo xoogaa % subscribe ma ii saarin. Please walaashiin amba maamadiin habarartiin subscribe ku saara si hore ugu sii socoto. Jazakallahu khayr. maanta waxaan rabaa inaan iiga sheekeeyo oday iyo xaaskiisa isqabeen oo Amerikaan ah oo kasoo kala gaaray oo odagii go'aan gaaray oo maxaa la dhahaa xaaskiisiina uu ka tagay. go'aan wuxuu ku gaaray inuu sii daayo oo dhaho ani adiga bis waaye waa sii dhaqaajinaya. wuxuu yiri aniga waxaan rabaa inaan soo iibsado motorcycle oo adduunka aan kusoo wareego noloshaanaytada mar rabi. waxaan rabaa nolol cusub inaan bilaabo marka sidaas ogow waan baxayaa. odagii wuu baxay cidii shoogu ku riday ninka wuxuu ahaa nin awoowe ah oo maxaa la dhahaa ilmihiisa ilmo ay sii dhaleen. marka odagii wuu baxay mootadii soo iibsaday alaabtiisuu aruursaday wuu saartay wuu tegay odagii reerkii oo shoog ugu tagay ilmihiisa oo meel kala deganoo waaweyn islaantii kaligeeda guriga ugu tagay wuu baxay. marka dhowr maalmood kadib baa waxaa la arkay mootadii oo taalo guriga xaafadda ah. waa loo garaacay wuu soo baxay waani imaana oo yiri gurigu u imaaday waa la weydiiyey maxaa dhacayaa la dhahay waa baxaa tiri noloshaan ma sii joogi kare waan ku cakirmay nolol kalaan rabaa inaan suubiyo adduunyada inaan wareegaan rabaa nafteeda inay isoo dabartaan rabaa wixii markii aan rabay inaan jeclaayo markaan yaraa aan jeclaa inaan sameeyo baan rabaa inaan suubiyo maxaa dhacay meeshaan noo fadhisaayo. wuxuu yiri imaqla aniga naagtaanaan jeclaaday. waxay tiri naagta markaan jeclaaday naagta gurigeeda isla degnay intaan rabaa inaan joogo ikhtiyaaran leh waxaan rabaa samayn karaa na kala wada. sidiyaa lagu kala baxay waa la deeyay xoog laguma laha qof kastaba noloshiisa wuxuu rabaa samaysan karaa sidiyaa loo deeyay. kabacdii waxaa haddana dhacday iyagoo shooggaas ku jiraan oo naxsan oo yaaban oo shoogii hooyadii macal ilmihii ayeeyada loo ahaa iyo ilmihii ay dhaleenba wada naxsan. haddana odagii waa kanaa dhowr bilood kabacdi asigoo wata boorsadiisii oo soo laabtay. haddana maxaa dhaca layiri maxaa rabtaa. wuxuu yiri gurigeyga anaa iskale gurigeyga anaa iibsaday waa isla leenani adiga inta guriga la iibinayo noloshaada ma rabi inta guriga laga iibinayane gurigan waa degnaan anaa iskale. oo maxaa dhacayaa la dhahay gabadhii aa u guurtay ma soo nacda hadda. markaas wuxuu yiri maya aniga waxaa ku heshiinay brograamkeen intaan kasoo saxsanayno maxaa la dhahaa inaan kula dego. naagta waxay tiri naagta uu guuray waxay ahayd 20 sano naag iga yar aniga buu u guuray tiri. markuu guriga yimid kadib oo sheekadaas u sheegay waxay tiri waa ku qasban yihiin ayaga dadka anitod diintooda anaga keenoo kale maaha way isla degaan caadi waaye. marka dhinacii guri kasoo degay meeshii waxay noogu bilaabatay tiri dagaal inaan isku hayno inaan maxaa la dhahaa buuq ciyaalka imaan jireen xataa way joojiyeen inay guriga imaadaan sababtu waxay dhaheen meeshaanaytod gurigaanaytod wuxuu noqday naar uu noqday. markii la imaadaba dagaal laba qofood oo waaweyn oo guri isla degan baa maanta dhan kala celinayna guriga ma imaanayno qof alaal qofkii raba inoo imaado guryaha noogu imaado anaga maxaa la dhahaa gurigeena nigu casumayno qofba marka gooniha noo yimaado. idinkana waxaa nii sameynaya dhaheen gurigaanii kala jaraynaayo partition aan subinaynaa adiga dhinac qaybtaada hayso asina qaybtiisa haysto si oo xoogaa yar maxaa la dhahaa problemkiin u yaraado. waxaas wixii ka dambeeyna idinka unbaad isugaynaa anaga mana la joogeyno. hayee tiri hooyada waxay dhahday markaan gurigan ka tagay tiri waxaan u malaysaa in liiga soo saarayo meel gubatay. ilmahey gurigooda markaa tago farxadda qosolka soo dhaweynta kofiga soo carfaayo raashinka soo carfaayo ilmahooda qusqusaaya kaan arko kusoo raaxaystaa tiri. laakiin waxaan ku qasbanaho gurigeyga inaan kusoo noqdo ilaa guriga laga gadayna waan wada degnaynaynaa. marka saasay ku wada nolosheeda ku wada socotay. odagana meeshuu degnaay problemka saasay kusii wada badatay. maalin kasta marka waxay tiri mar allaale markaas aragno waxaan rabaa inaan dilo waxa i qabato inaan dilo nafta aan ka siiba i qabato mar kastaba. maxaa la dhahaa mana iga tagaayo mana ii rabo oo ma xishmaynayo inta sana aan isla degnayn iyo inta sana aan nolosha soo wadaagna oo waxaan quruxda aan subsanay
ma rabo inuu maxaa la dhahaa aniga xataa oo dhinacayga oo naagtan sii daayo aniga ila joogo oo gurigeena nolosheena haysano go-aanuu gaaray anigana waxa ay gashay waa lagaa raayayo gabar yaraa lagaa raacay noloshana sidaa ligaaga baabi'iyey oo intaas sanaa soo dhisaysay marka waxay tiri waxaan ku jiraa nolol naar ahaan ku jiraa hel waa nolosheeday tiri maxaa la dhahaa ninkini gurigana iibintiisa ma sahlan dhahday ninkan go-aan wuxuu ku gaaray aniga inuu iska kee tuuro qashin oo kale iska kee tuuro oo gabar 20 sano iga yar uu keensado mana ii baahno laakiin lacagtiisa u baahan yahay guriga ku jirto guriga in la iibiyo waa waqtigan lagu qaadatay على أي حال waxay tiri waxaan ka qaban kara male go'aankiisa wuu gaaray gurigana sharciga ku joogaa iyo xooggiisa ku joogaa marka waxaan ku qasbanahay tiri nolosheeda inaan meeshaan aan kasii bilaabo waxay tiri da'da aan jiro aan ku shaqayn kara ma aha maxaa la dhahaa waxaan qaban kara ma aha hadda wax ma raadin karin nolosheeda gurigaas inaan ku xirnaado oo maxaa la dhahaa oo aan sugo intay lacagta iga soo baxayso oo nolol cusub aan samaysto guri kaliya kasii yar aan ibsada moogiye wax kale male waxayna igu qaadan kartaa sanooyin badan haddii aan gaaro ama aan wada gaarno sanooyin badan ay qaadan kartaa gurigaas in la iibiyo oo aan nolol cusub aan samaysto anigana oo aan ku faraxsanahay meel yar aan dego inta ka horeysa tiri guriga waa inaan waxaan ku qasbanahay guriga inaan degnaado asiga masaa in hortaagnaado inuu gurigu diiday waxay soo dhaheen ma aqaaniya tiri laakiinse gurigii wuu kusoo noolaan waaya naagta wuu wataa marka hore buu aabaa meeshaan rabaan ka dhacaan motoorka gadaale u saaran tahay mootada gadaale u saaran tahay meeshaan rabaanay aadaan waan arkaa markuu baxo ishaan kusii qabtaa waxay tiri waxaan dareensanahay in la idhacay xaqayga in la qaatay oo la idhacay oo maxaa la dhahaa noloshii aniga aan lahaa oo aan haystay inuu ninkii i guursaday i khiyaanay oo iga dhacay ma una fiirinay tiri nolosha fiican soo marnay ma uu fiirinay tiri maxaa la dhahaa maalin maalmaha ka mid ah intaa ani inuu jeclaan jiray wuxuu fiiriyey maanta iyo wuxuu rabo fiiriyey markuu baxay xataa geesinimo igu dhaho oo marka hore iga dhadhaciyo waxaanaan socdaa naagtaasaan jeclaaday saasaan waxaasaan yeela xataa ma idhihi tiri wuxuu ii sheegay been inaan lasoo arkayna camal oo lasoo qabanayni xataa meel dheer muuna aadina tiri dariska buu aaday marka saaxiibayaalow istooda sidista maanta raba inaan nala wadaago aad iyo aad aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu